Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta ku xiran Najax Kitchen and Beauty soo dhawaada walaalahayga meel walba aad joogtiin dhammaantiin soo dhawaada waana ku mahadsantiin sida quruxda badan mar walba ila socotiin walaalahayga maanta walaalahayga waxaa inoo wada cashar aad u muhiim ah oo gabdhaha oo kaliya qaas u ah casharkan oo in badan la isoo weydiiyay ayaa maanta waxaan jeclaystay inaan soo geliyo janaalka insha Allah casharkeena maanta waxaa waaye caleentan ama shaaxan bakeeriga igu jiro ayuu ku saabsan yahay waxaa waaye shaaxan waa shaaxii dhiigga caadada soo saaraya ama banaanka keenaya hadii uu dhiigga kugu xiran yahay kala maasha Allah tabaaraka banaanka ka keena hadii aad ku xanuunsatado kala xanuun baabiyo ku noqonaya makaan ku soo nadiifinaya maasha Allah tabaaraka shaaxan hada faa'iidadiisa lagama sheekeyn karo walaalahayga insha Allah maanta shaaxaas ayaa maanta walaalahayga sidaa shaaxan waxaa waaye markuu gabdhaha uu dhiigga waxaa jira gabdho badan uu dhiigga caadada haayo laakiin uu ka imaanaynin uu xanuun ku haayo garaac fara badan ku haayo maasha Allah waxaa waaye shaaxan ayaa ku caawinayo shaaxeena sida tan ayuu ka kooban yahay walaalahayga waa kana horta caleenta aan shaaxa ka sameysanayno waa hibiskaas caleentan waaye walaalahayga sawirka qaata supermarketka ka soo gaday caleentan waxay ka sameysan tahay ubax guduudka ama flowerka guduudka sidoo kale jeegan yarka waxa igu jiro nus litir biyo aan soo karkariyay ama aan soo kululeeyay sidoo kale halkan waxa igu jiro malab iyo xabasoodo intaas oo kali ayaan ka sameysanaynaa shaax bismillaah caleenteeni ayaan hatana diyaarsanaynaa insha Allah caleentii ayaan soo qaatay walaalahayga caleenta awal ayaan hore u isticmaalay caleenta sawirka qaata screenshot ka qaata in supermarket ayaa ka helaysiin insha Allah supermarketka ayaan ka soo gaday caleentii hal xabo ayaan ka soo bixiyay koobkii aan ku qasan lahayn ayaan ku ritay sidoo kale waxaan ku shubayaa biyihii noo diyaarsanaa oo nus litirka ahaa aan soo kululeeyay ayaan caleenteena ku shubay intay caleenta iyo biyaha isku milmayaan walaalahayga waan sugeynaa insha Allah 3 daqiiqo camal ayaan u kaadinaynaa intay si fiican iskugu dhex milmayaan oo biyaha kalarkooda soo bedelayo oo hada u soo ekeenayo flowerka guduudka insha Allah walaalahayga waan sugeynaa maasha Allah tabaarakallah waa ka caleenteeni way soo milantay iyo biyo soo dhex galeen waan ka bixiyay sidoo kale walaalahayga waxaan ku darayaa malabkeeni noo diyaarsanaa ayaan wax ku darayaa hal qaando oo kamida malabka ma ka badinayay insha Allah hal qaando oo kaliya ayaan ku darayaa walaalahayga alaabtan lagama sheekeyn karo maasha Allah tabaarakallah waa alaab la hubo insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin sidoo kale walaalahayga waxaan ku darayaa xabasoodada ayadana kama badinayo 5 dhibcood oo kali ayaan ku darayaa insha Allah intaas hada waan isku qasayaa oo si fiican ayaan iskugu qasayaa alaabtan waxa cabaysaa subaxii iyo habeenkii waa laba waqti marka cuntidoo kale ayaa cabaysaa wax qaraar ma lahan caleentan ayadaaba mac flowerka ka sameysan oo waxa ku jiro sonkor yara ma qaraaro marka walaalahayga waa kaasa alaabta inaba caadi maahan waa alaab la hubo wasaqdan ku banaanka keenaysa inta uu dhiig ku haayo ayaa cabaysa maalinka kugu dhaco maalinkeeda labaad ayaa bilaabaysa insha Allah hada alaabtan waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin dhammaantiin soo dhawaada meel walba aad joogtiin waxaan ku alaabtan makaanka soo nadiifinaysa xanuun baabiyo waay wasaqda banaanka ka keenaysa faa'iidadeeda hada walaalahayga halkan laguma soo koobi karo aad ayaan u mahadsantihiin sida quruxda badan mar walba ila socotiin dhammaantiin soo dhawaada hadii aad hore noola joogto soo dhawow hadii aad nagu cusub tahay soo dhawow aniga mar walba waxaan jeclahay walaalahayga wixii aan ku faa'iido adinkana inaad ka faa'iideysatiin